ma jira xildhibaan miyir qaba oo midig iyo bidix kala yaqaan oo dooranaya farmaajo ma jira waa adag tahay inuu jirto sababto waxay tahay xildhibaanku wuxuu rabaa inuu xildhibaan noqdo su-aasha ah in farmaajo yaa la shaqeeyey haddii aan su-aashaas isweydiino ee aan uga jawaabno khudbadii uu jeediyey waxaa kuu soo baxaya waali caadi ah tusaale ahaan wuxuu ku leeyahay ra-iisul wasaarihii aan magacaabay asoo u jeeda xasan cali khayr shaqadii loogu talagala ma qaban oo dhah maxamed xuseen roblana soomaba hadal qaadin haddana wuxuu ku leeyahay waxbaan qabtay oo waa kan jiri 24 iskuulaan soo celiyey iyo 65 arday marka 24 iskuul yaa soo celiyey ma ayaga isu soo celiyey iyagoo socday may xafiiskiisa ugu tagay yani 5 sano iyo dheeraadaan joogay waxbaan qabtay iyo ra-iisul wasaarihi aan magacaaba midna wax ma qaban midna magaciisa ba sheegi maayo inaan maxamed xuseen roble dhahba waaba ka cabsaha inaan dhaho ilan of course maxamed xuseen roble in farmaajo asoo nool dhaxlay marka ma sheegi karin wuxuu ku sameeyey waxa la dhaho overbriding yani overpowering wuu ka awood iyo haybad badiyey sababta ay tahay dadka Soomaalida loogu talagalay inuu asagu isu keeno ayaa roble isu keenay marka raganimadii oo ku dhihi lahay waxaan guul u qiraa ninkaas oo shaqadii aan qaban waayay qabtane ma laha bakee laanu inaad shaqo aadan qaban karin haddii nin kala qabto aad u qirato waa inaad marka hore leedahay personality shakhsiyad ku ogolaanaysa inaad qof kale u sameyn kartid appreciation so he cannot do it asagu because he don't have such traits shakhsiyadaas iyo karaamadaas asagu ma laha so qof kasta haddii la weydiiyo oo la dhaho war ninka sidaa buu leeyahay ninkii aan magacaaba midna wax ma qaban midna magaciisa ma sheegin waxna waa qabtuu leeyahay dadku waxa keliya oo ay fahmi karaan markaa waxay tahay taasi inay tahay nooc ka mid ah waalida taasi inay tahay nooc ka mid ah waalida ra-iisul wasaarihii wax ma qaban midna sheegi ma kara magaciisaba oo waa idhibaaba oo waa ku xasaasiyoha waxna waa qabtay arrinkaas wuxuu ka mid yahay waxyaabaha waalida waana saan kuu sheegay asugu sidiisaba 5 sano dadka Soomaaliyeed hortaagnaay halkaas jumle ayuu maalinkaa qeexa si loo fahmi karo wax kale weligiis ma sheegin qof kasta oo Soomaaliya oo dhageysanaya ama dhageysan doona TV-gan car soo sheeg in farmaajo oo jumlad la fahmi karo oo la dhihi karo allay leeyahay jumladan waa saxay la dhihi karo sheegay oo aan ka ahayn qeexitaanka waalida ma jirto waxa kaliya ee uu kare inuu qeexo waa qeexitaanka waalida 5 sano ma qaan sida uu ku bartay ma dhaqaatiirta soo baray ma kala qaan ma kala garan Bimalo Center moolka Bimalo bari dhaweyd anoo baawur saaran waxaan meel fog ka bidhaansaday boor ay ku qoran tahay Bimalo Center xog balaaran ma naga siin kartaa ha moolka Bimalo oo bulshadu ay bilooyin badan sugayeen ayaa albaabada loo furay ma xarunta ganacsiga ee Bimalo baashaal ha u malaynaya baana hawaasnimo bilaash maaha hadalkaygu Bimalo Center waa mool baaxad weyn oo boqolaal shay oo kala nooc ah barta aad ka helayso qiimuhuna boqon oo goys maaha tayadu waa mid la hubo boqolkiiba boqol bulshadu ay u bogeen wax kasto baahidaadu tahay badeecati u dambeysay beledkeena looga adeegto ha ahaato electronic baakadaysan wax kasto suuq looga baahdo bakeeriba ha u yaraato waa barta aad ka helayso Bimalo Center moolka Bimalo waxa uu ka kooban yahay dukaamo casri ah oo qaab heer sare ah loo qaabiyay waxayna ku hayaan alaab tayo sare leh maacuun noocyadeeda kala duwan qalabka electroniga sida qasaaladaha frinjeerka kuukarka ama qalabka cuntada lagu kariyo iyo wax walba oo guriga lagu isticmaalo waxyaabaha ay dumarku isku qurxiyaan make-up tayadiisu sareyso iyo udug nooc kasta leh dharka dumarka waa labiskii u dambeeyay oo quruxdaada soo saaraya qaybta qalabka ceelasha iyo tubooyinka wax kasta oo aad u baahan tahay waxa aad ka soo dukaamaysan kartaa Bimalo Mall adiga oo aan la soo kulmin ciriiriga suuqyada kulayl iyo rafaad waqti badanna uusan ka lumin qiimuhuna waa mid aan ku eriyay Bimalo Center xarunta ganacsiga ee Bimalo barta uu ku yaalo waa afaafka hore ee suuqa bakaaraha iyo agaarka masjidka barakaysan ee macallin Bimalo